waxay wax u dhaceen shala galab yaa ubax maxamed yaa waxa loo diray qoryo maamadii way weeyday gabadhii ilaa xalay oo dhan baa la sugayay xaafado oo dhan baa laga goobahayay waa la waayay wiilka gabadha qabay oo anigu aan dhalay baa soo wacay aaba gabadhi waa la waayay waxaan baadi goobay maamadii hooyadeed ahayd baan wacay maamadii hooyadeed baan u tagay meeshaas ay igu dambeysay bay tiri oo halkaas ay igu wardambeysay meeshii ay raadkeeda uga soo laabatay baan tagnay markaan raadkeedaan qaaday gabadhii waxaan u tagay meyd ah oo la isticmaalay oo buumihii meel yaallo ayadii diraceeda iyo googorodeedana halkaa u saaran yihiin jeegadana uu ka bileeyey dhuunta uu ka bileeyey meel walba torreey uga yaallaan meyd bayna ahayd saasay wax u dhaceen ubax allah u naxariisto ciidamo boolis ah yimid oo soo qaaday aniguna ninka raadkiisa baan qaaday waxaan ahay cabdulaahi aadan baalle marxuumka dhintay ubax maxamed yaxye walaashay weeye in adeertay aabbahaygii labaad baa dhalay shalay galab baa guri xaafadeed waxaa looga diray xaabo xalay waa la kala dibbooday shil baa la kulmay dadkii ehelada ahaa iyo hooyadeed iyo xaafadihii way waayeen ehelada ka sarraysaa kama aysan warqabin saakay baa laysku soo baxay gabadhii waa la raad qaaday xaabadii ay wadatay iyo maydkeedii baa isku meel loogu tegey way qaawanayd maradii u hoosaysay maryaha way ka maqnayd kuwa kalena laabtay u saarnaayeen way biraysnayd hooyadeed uur bay ku sheegtay 3 bilood ah oo ay lahayd gabadhaasu waa la qabay guriga hooyadeedna way ku sinnayd weli lagama xaraysan ubax maxamed yaxye janno iyo raxmo allaha siiyo haatanna xabaasheedii baannu joognaa iyo baaritaankeedii warbaahinta waxaannu u sheegaynaa iyo dadweynaha Soomaaliyeed sidii xaaladaas ay wax uga qaban lahaayeen in ay wax uga qabtaan annagana iyo eheladoo dhan samir iyo iimaan Allah ka siiyo inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun aad baan uga xumahay falkaas tacadiga oo ka dhacay halkan aad iyo aad baan uga tacsiyeynayaa waxaan ka codsanayaa anigu warkii waxaan ku soo gunaanadayaa wixii hore dhan waa laga hadlay waxaan ka codsanayaa laamaha amniga inay ku soo qabtaan qofka gacan ku dhiiglaha oo falkaas si degdeg ah looga soo jawaabo waxaan codsanayaa sidii Caysha Elias oo kaleeto gabadhaas falkeeda in looga soo si degdegsiye waxaan maanta soo booqanay meeshan oo uu yaala meydka marxuumad ubax ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u naxariisto waxaan naloo sheegay gabadhaas in la dilay oo ay biraysan tahay kufsina loo geystay inkastoo xaqiijintii wali la wada iyo baaritaanadii laamaha amniguna ay ku raad joogaan qofkii dhibaatadaas geystay oo aan wali hadda gacanta lagu haynin sida naloo sheegay marka waan ka tacsiyadeynaynaa geerida naxdinta leh oo gabadhaas ku timid inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxay ahayd hooyo uur leh oo da'deeduna ay aad u yarayd oo naloogu sheegay inay 17 jir ahayd dhibaatadaas ayaa meeshan ka dhacday waa deegaanka la yiraahdo Balli Labaad oo degmada Cawda ka tirsan ayay dhibaatadaas ka dhacday sida naloo sheegay shalay galab ayaa gabadhaas la waayay sida xogteedana la siiyay oo qoryo loo diray kadib saakayna meydkeeda in la helay ayaa naloo xaqiijiyay oo hadda si dadkii aan maaragtay waraysiyada aan ka qaadnay nala wadaageen dadka kale waxaan u sheegaynaa arintaas arin laga qaadan karo waxyaalaha xeer hoosaadka iyo odayaasha iyo lagu xalliyo in aysan ahayn gabar xaamila oo inta la dilay haddana la gowracay waxaan leenahay cadaaladda la waafajiyo cidii falkaas ka dambeysay waa in cadaaladda la waafajiyo oo hadii la qabto cadaaladda la marsiyo annaga ka wasaarad ahaan haddaana wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka dawlad goboleedka Galmudug oo aan anigu wasiir ku xigeenkeedii ahay oo aan maanta ku suganahay goobtii uu falku ka dhacay waxaan cambaaraynaynaa falkaas foosha xun